الجوزي رحمه الله dadka salaada tukanaya shan buu kala qaado wuxuu yiri qolo salaada ay tukato adduunkan ya akhira ilaahay waa ku cadaabi waa kuwa salaada marna way tukadaan marna way ka boodaan marna way tukadaan marna way ka boodaan awqaadii iyo jawaamicdana kuma ilaaliyaan buu yiri fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun salaada way tukadaan laakiin awqaadeeda xilligii rabaan bay tukadaan kuwa adduunkan iyo aakhira salaadooda ilaahay waa ku cadaabaya balay qolada labaad waa qoladee salaada way tukadaan jamacana way ku ilaaliyaan masaajidana way yimaadaan laakiin qalbigoodu xaadir maaha min albidaaya ila nihaaya salaadoodu waa sahwi kuwana salaadoodu ilaahay bay hortaallaa hadduu doono ilaahay waa ku cadaabi haddii uu doono ilaahay waa ugu naxariisan bay culimadu yidhaahdeen salaada saddexaad waxa weeyaan uu tukanaya salaada jamciya jamaacadii masjidku ku ilaalinaya laakiin markuu salaada yimaadana wuxuu bilaabaya jihaad buu bilaabaya qalbigiisii buu shaydaanku la tegaya dadna uu ka soo celinaya haddana uu la tegaya uu ka soo celinaya ka salaada intuu la yimideen ilaahay baa uu qorayo ka aqbalaya inta ka dhiman ilaahay waa ka cafinaya baa leeyahay salaada saddexaadna waa salaada maaragtaani awliyada istaciinu bis-sabri was-salaa waa kuwa maaragtaani xawaa'ijtooda baahida ay leeyihiin markay arrin ay la soo daristo waxay leeyihiin salaad baan ku ordayaa hadday ciideeda iyo dayaxa isbedel ku dhaco salaad baa loo jideeyay hadday abaari ay timaado salaad baa loo jideeyay hadday cabsoodaan salaad baa loo jideeyay hadday masiiba ku dhacdo salaad baa loo jideeyay hadday muraad iyo xaajo yeeshaan salaad baa loo jideeyay hadday arrin khayr iyo shar inay u leedahay kala saari waayaan salaat al-istikhaara loo jideeyay istaciinu bis-sabri was-salaa duulka afraadi waa duulkee xawaa'ijtooda adduunyadana ay leeyihiin waxay muraad leeyihiin hebel iyo heblaaya noogu sheeg ma yidhaahdaane masaajidka intay soo galaan bay baahidooda ilaahay u sheegtaan salaada shanaadna waa salaadii nabigeena calayhi salaatu wasalaam waa salaaduu nebigu yidhi arixnaa biha yaa bilaal kacoo salaada inoogu ku raaxaysanne xubbiba ilayhi min addunya halaath adduunka waxaa yaalla saddex baa aniga lay jeclaysiiyey buu rasuulku yidhi waxaa lay jeclaysiiyey atiibu waxa li wixii udugay udgoon waannisaa iyo haweenkana waa lay jeclaysiiyey wajucilat quratu cayni fi salaa halka indhahayga iyo qalbigaygu ku qaboobayaana salaadaa laga yeelay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam markaa saxaabada rasuulku salaadaas ay barteen iyagu inay salaada ku raaxaystaan in salaadu ay u noqoto meel markay salaada ay xidhaan adduunyadaba ay ka tagaan nin culammadii salafka ka mid ahaa ayaa mar alli markuu salaada xidho thaabit albunaani baa loodhan jiray abu muslim raximahullah waxaa lagu yidhi salaadan aad tukanaysid annaku waan laanahay si aad ku hesha adigu salaadan mar alli markuu salaada tukanay lilmadaa ka daadanaysa wuxuu yidhi kaabatu min ajli salaati licishriina sana watanacamtu biha 20 sana buu yidhi salaada ruuxdeeda dhadhankeega xaqiiqadeeda inaan gaadho 20 sana ayaan u soo tabcay buu u soo dadaalay hadda 20 sanana waa ku raaxaystaa buu salaadaas kayfiyada salaada aad u tukata noo sheeg baa laga yidhi wuxuu yidhi niman yahow anu safka markaan gala buu yidhi imaamka aan gadaashiisa istaagin salaada xidhanayo waxaan istixdaar aan ku soo xaadirsadaa qalbigayga yowma yaquumu nnaasu lirabbi alcaalamiin waxaan ka soo qaadaa safkan miskiidka aan joogay inuu yahay kii maxsharka banka qiyaamaha halkaasaan markaa ka xidhaa buu yidhi salaada inaan ilaahay hortaaganahay baan soo xaadiriyaa ucbud allaha kaannaka taraah fain lam takun taraahu fainahu yaraak ilaahay waxaad u caabudaa si waxaad adigu aad u jeedood arkayso haddaad adigu arkayna ilaahay jalla wacala isagaa ku arkaya wuxuu yidhi markaa waxaan ka fikiraa markaa salaada dhexdeeda kii xagga midig iga xigay oo malaa'igtu ay qaadoo layidhi ilaahay baa kuu yeedhay xisaabta lagugu yeedha soo dhaqaaq haddana kii bidixda iga xigay oo la qaaday kii iga dambeeyey oo la qaaday kii iga horreeyey oo la qaaday waxay salaadu ii dhammaataa aniga oo marka u dambaysa qalbigayga ku soo xaadirsaday maxsharkii banka qiyaamaha keligaa baa ku hadhay haddaa ilaahay kuu yeedhi doonaaye maxaad ilaahay kala kulmi doontaa dareenkaa iyo shucuurtaa baan salaadeeda ku dhammaystaa buu aye raisli ninkuna dareenka ku dhammaysataa masaajid annagoo habeen ku tukanayna buu imaamkii salaat alcishaa wa ama in kaana min almukadibiina adaalliin masaajidka o dhan baa yidhi aamiin waa rakacaddii labaad salaat alcishaa anna waan ku jiraa safka hore
salaadii markii laga baxay buu imaamku yidhi war aamiinta labaad halkeed ka keenteen wallaahi mid xagga unbaa bilaabo waa la bilaawnu midh anagu alla waa ku darray laa ilaaha ila allah markaa mid baa yidhi sheekh kuwaas wayba qayliyeene waxa maanta muslimiin ilaa man raxima rabbii masaajidda ku tukanayoo dhan way naga dhex qayliin mooyaane adduunyaduye kulligee gudaha ka wada hadallaa buuli والإنابة إلى دار الخلود من أسباب الهداية إنه قلبك قفك النور الهداية أي دكتي وحال لقو قرتابو يلي رسولك دارت وارتانك وصاحبك إلا قبضا بين أيو أيو قفك مؤمنك قلبك سجع على عذاب رسولك والاستعداد للموت قبل نزوله والاستعداد للموت قبل نزوله على مدى صدح هذا مؤمنك لقو قرتا وحاكمد يلي رسولك inta qofka muuminka ajashu aysan ku iman asagaa dhimashada u diyaar man mina laa yakraha almowt dadka maanta muslimiinta nolosha iyo geerida noloshaan jecel lahay ashyaada materiyaalka iyo lacagta iyo camalka saalixa qalbigeennu hadday dhibaata ay nagu timaado wuxuu u iilanayaa lacagtu u iilanaya wuxuu le lacag haddaad haysa mashaakilka way xallismaysaa khaaliq iyo makhluuqana maanta ummaddu way kala garan laadahayba khaaliq iyo makhluuq ilaahay ma doonaya qalbiga meel kale inuu u jeesto ilaa xaggiisa mooyaane waa meesha ilaahay addoonka uu ka fiiriya buu rasuulku yidhi qalbigu calayna an nuxsina منظر الرحمن منا إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ولله المثل الأعلى أو الشقادة هذه كيمة دي هذا قولك هردد هذا قلت ما دحاس كاغي ونكر الله فديك ورا ولله المثل الأعلى هل كإلهي ما جعله ما نربو إن لقوا أرك جعيلك لا يعبسك لا iyo rajo kale iyo baryo kale ilaa baryadiisa iyo cabsidiisa mooyaane waa xubinta keliya jirka la sheegay inay keliga tahay alqalb gacmuhu waa labo luguhu waa labo indhuhu waa labo sanku waa labo dabnuhu waa labo dhaguhu waa labo u fiirso keliyuhu waa labo garbuhu waa labo bawdadu waa labo laakiin qalbigu waa mid keliya maxaa qalbiga mid looga dhigay waa xubinta keliya jirka bini aadamka maamusha buu rasuulku إذا صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله ألا وهي القلب والنبي يقول ألا وهي القلب حبين باكو جرت جرك بني آدمك حتى هجاك تجرك ودم بهجاجي حتى باناتنا جرك ودم بانان تاسنا وقلبك أبو النبي يقول حتى قلبك هجاجو قلبك معكو هجاجيا وإلهي معرفة ديسا حتى قلبك معرفة إلهي أي دكتو حبناها بني آدمك وحي نقنيا حبنا مرنا إلهي عن عصيانك سكود عين مرنا إلهي إني عاصيان وأتكان ما دام حمنتاسي ما أنت أي بكوتي إنهيني وحي الربان بي إيغيا دقيهيني وحي مقلان بي دقيسانيا قعمهيني وحي الربان بي قبانيا لقيهيني ماشي الربان بي آذيا دقالهيني ماشي الربنا كبحينينا هذا الكيني ماشي وحن دونكو هاللينا فحن حسن البصري رحمه الله يا يري صد سنة ما قسل أفرت سنة ما كفتمن وحن سوغاري الرق يا أقوام وحن سوغاري أن مركان لجوغا عن اسكم مليني إن أنا نقطوغا عن اسكم مليني وإمامك وخير التابعين ويا وعالمك تابعين توقع علم البناء ويا نوح هذا الكالي صد سنة ما قسل مويري أفرت سنة هذا الكفتما إيقام الصوبحين waxaan soo gaaray aqwaam markaan la joogan agtooda joogana anigu aan isku malaynaya inaan ahay tuug waa xasan albasri ninka sadaaqay hadday jirka xubinta hadday hagaagto carabkaagu uu hagaagi maqalkaagu uu hagaagi hadalkaagu uu toosi ficilkaagu uu toosi calooshaada xaaraan ku dhici mayso gacantaadu maxaarimta taaban mayso lugtaaduna meel ilaahay ka raalli ahayn oo loo isticmaali maayo waxaan fahmi laanahay maanta احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إلهي أمرك إلالي أذيك إلهي باكو إلالين
nin culammadii salafka ka mid ahaa 120 jir buu noqday daadiisu ayuu gaaray tiinuhuna ma caddaanin waa 120 jir 20 jirka socodkiisu ku socdaa 20 jirka sidiisu u hadlaa xooga 20 jirkuu leeyahay sida 20 jirku u tallaabsadaa waxaa lagu yidhi da'daadii waa ta dhaqaaqi leh dhallinyaradii kaa yaryareedoo dhan way buusbuuseene way gaboobeen aduu maxaad cuntaa baa laga yidhi noo sheeg wuxuu yidhi xadiiskaasaa ku camal falaa buuhi anigu ilaahay amarkiisa ilaali adigana yaa ku ilaalin ilaahay nicmadda aragga ilaahay kuma caasin buu yidhi ilaahay araggiibuu quwaddii araggu ii ilaaliyey buu yidhi nicmadda maqalka ilaahay kumaan caasin ilaahay quwaddii maqalku ii ilaaliyey buu yidhi nicmadda maaragtaani xoog iyo dhallinyarnimada ilaahay kumaan caasin nicmaddii dhallinyarnimadii iyo xooggii baa ilaahay ii ilaaliyey ixfad illaaha yaxfadka baa ku shaqeeyaa buuhi anigu ilaahay amarkiisa ilaali adigana ilaahay baa ku ilaalinaya innagana maanta dhallinyaradeenna eega 20 jirkoogii baa buusbuus kasratu lmacaasi waa macaasida weeyaan waa markaan nidhi xor baan ahay ikhtiyaar baan leeahay waxaan doonaan eeg waxaan doonaan cuni waxaan doonaan samayn oo yaa kaa yidhi xor baa tahay addoon ilaahay baa tahe haddaad xor aad tahay oo xorriyad aad sheeganayso maxaad la gaboobi maxaad la buusbuusi maxaad la bukooni maxaad la dhimani maxaad la walwali maxaad la abaaroobi maxaad la cabsani ninka xorriyad gaadhay waxaasoo dhan waa inuu ka bogsadaa khalaas waa xor la yidhaha ma jirto kullu bini aadan waxaa adduunyada joogoo dhan waa ilaahay addoomihiisi addoonna sifada addoonkuna waa sifadee berigii addoommaha la soo gadan jiray ayaa nin maalqabeena ayaa tegey meesha markaa addoommaha lagu gado markaa buu soo iibsaday meheradiisii buu la yimiday waa addoon buu soo gatay meheradiisii buu la yimiday markaasuu yidhi magacaabaa lagu yidhi awriyaa wuxuu yidhi maanta laga bilaabaa magaca adigu aad ii bixisaa magacii noqonaya buu ka yidhi markaasuu yidhi dharka maxaa jeceshood xidhataa markaasuu yidhi maanta laga bilaabaa dharka adoo adu ii xidhoon baa dhar ii noqonaya buu markaasuu yidhi raashinka maxaa jeceshood cuntaa markaasuu yidhi maanta laga bilaabaa raashinka adigu aad isiisoon baa raashin ii noqonaya buu markaas war balkan eega buu yidhi waxaan weydiiyey baanu igu soo celine war adu maanad ikhtiyaar lahayn buu ka yidhi markaasuu yidhi addoon baan ahay addoon ma ikhtiyaar buu leeyahay haadaa macna addoonka macnihiisu waa saas addoon wuxuu raba ma eego wuxuu raba kuma hadlo wuxuu raba ma cuno meeshuu raba isma taago suu doonu uma socdo walaa tamshi fi lardi maraxa innaka lan takhriqa alarda walan tabluga aljibaala tuulaa baa ilaahay dhulka markaad socotana kibir iyo khoyaalaha u socon baa ilaahay ku leeyahay dhulkana ma dillaacinaysid buurahana dharar ma gaadhaysid bini aadan xariya kaadila daciifaa tahee maxay naga buuxa waxa musqusha ka buuxa adaa ka buuxiyey anaa ka buuxiyey maxay naga buuxa dadkan soo socdoo dhan waa wada bullaacad socota ilaahay baa nasakhray mooyaane waxaan nahay ma jirto waxa qiimo ku leedahay waa ilaahay taacaddiisa waa ilaahay macrifadiisa daatanaadu qiimo male sindhaya kaadiya dhiig iyo biya kaa buuxa waxa bini aadamku ay haystaane maanta ku faanayaan anaa kaa dhaqaalo badan anaa kaa fooq weyn anaa kaa meherad weyn anaa kaa reer badan ma jiro waxaasna wax ku taraya maaha waxaas man bata'a bihi camaluhu lam yusric bihi nasabuhu baa nebigu yidhi ninka maalinka qiyaamaha camalkiisu uu la hadho uu camalkiisu dib u dhigo reerka uu ka dhashay hore ma u dhigaya horey ku dhigi maayaan iimaan iyo acmaal baa ilaahay doonaya walaalayaal kun cabdan lilaahi jala wacala 60 sanaad haysataa keliya 60 kaa sana waxaa la doonayaa inaad u noolaato sida addoonka addoon baad